بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندك استيال ومركلي برنامج كيني شيكو غابن saaxiibada qiimaha ee qadarinta naga mudanow qaybtii 2 ee sheekadii la magac baxday jacaylkii jaariyada ayaa waxay inoo joogtay meeqa bilood aad been ii sheegaysa bisha kale ha la gaaro bishaasaa soo socota ramadaanka ha la dhaafo arafada ha la gaaro war madaxa iga cunta madaxa lagaa cunya madaxaad iga cunta waatan qaybtii 3 ee sheekada oo aanu halkaasi ka sii ambaqaadno inkastoo horta ee Soomaalida hore ugu mahmahdaba walaaladii kala go'ayaan ciri dhul ayaa kala tagi lahaa oo fartaada xunna firfirqaysan kaaga hareynin bal maanta waa inaan u tagaa walaalkayga oo xaaladiisa aan wareystaa sababtoo ah muddo ayaa igu dambeysay islama hadlin guriga dhinaciisu ka maamulnay dhinaciga ka maamulnay laakiin waxa waa laga fiican yahay rag badan asaga dirtiisa ayay ka cabsanayaan laantiis abaar waa inaan u tagaa hallo abu amir ها رويدا أبا إسدتها هاي في عن لكن ماذا حاجة آذ وهوسيا هرت عفمات كورن أبا يوفي عنها الحمد لله هذه إسدتها هاي بسم الله الرحمن وفي عنها جوي كورن أبا يجوي وسيدة أجيدو أنا واحد بها مقبو عاجز وحانا كأهين وكفي عنها هي حال ذاك ود كورن أبا يو وحول بوا أوكي واحد بها دم مجرو maxay ka dambeeyay maanta waa waajib inaan abaydayda wax walba aan u sheego abay horta soo dhawow maba dheeriba wixii ka dambeeyay iyo wixii ka horeeyay oo idil maanta waxaan soo go'aansaday inaan ku sheego haye abay gabadhii guriga jaariyada ka ahayd gurigii waa ay ka tagtay wallahi waa arrin ka shaqay goormay baxdana abayo maanta kulaba ah gurigana waad joogtay miyaadan ogeyn oo maxaan ka garanayaa marka adiga maalmo fasaxi jira fasaxina kuma qantaan u maleynayay maya abayo maya gabadha gurigii waa ay ka tagtay ma xuma dib ma laha laakiin sababta ay u tagtay ma ii sheegi kartaa gabadha cabasho badan ayay anigu ila wadaagtay dadka ay ka cabanaysay adiga ayaa ka mid ahaa anigan maxaan ku suubiyay sidii aad ayada xilka ugu wareejisaba yaa saameyga waan ka yareeyay dib dambe xataa iskuulma inaan hadlin cuntada waa ii keeni jirtay wayna iga qaadi jirtay laakiin wax kale oo xataa wanaag galo on dhaxmar ma lahayn sababtoo adiga ayaa iga hiliya aniga walaasha ah laakiin maanta inay ka tagto guriga aniga aad ayaan ugu faraxsanahay waa runtayo wanaag idin kama dhaxayn xumaan bay ka sheeganaysay adiga siday kula tahay waa laakiin inaad garab siisay oo ayada diga saramar siisay laakiin maanta guriga ay ka tagto aniga goos dambe ayaan ka qoslaya inkastoo walaalkay aad tahay laakiin jabkaagan aan jecleen aad ugu xumahay inkastoo ay baxday haddana cidlaynta ay ku cileynayso oo guriga ka faaruqay tagista ay guriga ka tagtay aad ayaan ugu faraxsanahay abay ruwayda sidaa hadhihin aniga awal waxba ima yeelin aad ayaan ugu faraxsanahay aad ayaan ugu faraxsanahay inay gurigeena ka tagto taas abayo guriga wax badan ayay u haysay gurigoo idil ayayna haysay maxaa kugu dhacay adiga kullay aniga horaan kugu sheegay wax ay haysay ma lahan gurigeena wax ay ka qabatay ma lahan ayada ayaa la kabay taas oo la kaakaabay wax ay annaga noo qabatay haba yaraatay ma jirin waa ogeed gurigeena markay imaanaysay aad ayay u dhoobneed aad gabar dhuban bay ahayd iminkana albaabka kamaysa bixi kara aad bay u ballaaratay midda kale maxay taqaana markay imaanaysay gurigeena jaahilad bay ahayd iminkana ayadoo aqoon leh oo computerka taqaano oo ingiriiska taqaano carabiga taqaano af soomaaliga la baro xisaabtii la baray bay albaabkeena ka dhaqaajis aad ayay kuugu sugto adiga sababtoo adiga ayaa saaid u caawiya gurigeena adiga ayaa waxaad uga dhigtay guri leedahay camal kaleeto haddii aad jaariyada la dhaqmi lahayd saacadan mushaarkeeda ay fiirsan lahayd bes ruwayda inta kadib ma sii dhageysan karo laakiin hal mid ayaan rabaa inaan kuu sheego oo aan
in muddo ahaan kaa qarinayay. soo daa maxay tahay midaas bishaaro isbitaalka daarushifa isbishaalisti hosbital waxa uu ugu bishaareynayaa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda inuu kusoo biiray isbitaalka daarushifa doctor wisam antion trade oo ka yimid dalka Syria kuna taqasusay cudurrada obstetric and gynecology. dhakhtarka cudurrada uu daaweynayo waxaa ka mid ah kow daaweynta xanuunada ku dhaca ilmagaleenka ugxansidayaasha iyo qaliimadooda. labo ogaanshaha xilli hore kansarka ku dhaca ilmagaleenka iyo naasaha. saddex daaweynta ilma la'aanta ragga iyo dumarka alla ubadka bixiye. afar daaweynta infekshinka ku dhaca ilmagaleenka kaadimareenka iyo caadawareerka. shan hogaamin uur badqab ah iyo la socodka ilmaha uurka ku jira. lix dayactirka iyo dib u habaynta ilmagaleenka hooyada dhashayda ah. toddobo dhammaan qaliimada la xiriira dhalmada oo lagugu sameynayo qalab casri ah. fiiro gaara dhalmada iyo qaliinka hooyada ilmaha lagu soo qalo waa lacag la'aan. warqadda dhalashada ee ciyaalka ayaduna waa lacag la'aan. wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber 661 33 39 ama eber 6 7 34 44 77. raggoostaan la leeyahay dumar beenay ku xirigeliyaan runoo ku dhaqa laakiin hadda dumarkiyaa waxay noqdeenba ragga beenay ku xirigeliyaan laakiin fiiri walaalow daqar weynaa ku soo gaaree shaqadaa ma ahan ee wixii muraadkaaga ahaa iyo waxaad u socotay ka hadal daqari gaaray iyo dhaawaca soo gaaray iyo waxaas waxba kaama quseeyaan adiga waxa dhan oo usoo baxaa waxay tahay caafimaadkaaga iyo xaaladaa ku sugan tahay iyo sida aad tahay inaan ku soo fiiriyo. maxaa kaa galay ma dhakhtar baa tahay bay daweynaysaa maxaa marka aad la soo fiirinaysaa caafimaadkayga maxaa kaa galay wax walba iga galo aniga nolosheedii aa qayb ka tahay jeexaygiyaa tahay wagar baa la yiri jeexaygiyaa tahay waa ku jecelahay waa kuu jajabanahay adaan kaa jeesan waaye waa kaa joogi waaye sheekadaas way dhammaatay wax dhamaa jeceyl maa dhamaada adiga horta jaceylkaagu dhammaa alla dubadiyaa ku jeclaan jiray wixii jeclaan jiray duniyaa ka mid ahaa waa taas guriga inoo joogta dhowr caruurana alla iga siiya alxamdulilah. war duniya waa iska daaya duniya micnaha waa qoftii hore hadda waxaa la rabaa nolosha cusub inaad la qabsatid. nolosha cusub oo beenta lagu dheehay miyaad leedahay inaad la qabsatid duniya horta naagtaada hore waayo oo ma diidani muddana waa isqabteen wixii ilaahay idin qorana waa wahaysatiin laakiin in nolol cusub kala aaraasid ragga ilaahay afar wuxuu ugu baneeyay inay xilo badsadaan. xilabadsiga adigaan kaa soo bilaabay soo iguma xumeynin xujo igumaadan noqon aniga xujo kuguma noqon adaa ifahmi weyse oo horta fiiri dadka ayagoo si fiican isku baran ee aan isdhexgelin adiga jacaylka wixii la dhahayaa rabay inaan ku baro laakiin uma dulqaadkiisii baaba kaa maqanba. adaa i baraya marka soo maaha anaa ku bari laakiin dulqaadkiisii yaaba kaa maqanba. dhegeyso 11 bilood weli horteeda kusii qoran 11 weli horteeda kusii qoran odagaan wada ilaa yawm alqiyaamaha fiiri duniya markaa guursanaysa adiga ma 4 bilood aan la socday 4 bilood waxaan malaynaa waa in adeertaa lagugu soo daray in adeerna ma nihino maba isdhaqaan geelayago isma yaqaan baadiyaha dhibka jiraa waxay tahayba nin iyo naagaa is aqoon wiilii gabraa is aqoon qoorta la isku gala markaasaa xakaarka iyo dhibaatada ka daagan qoyska ma loo dulqaadan karo calaa kulli xaal aniga taas ma rabtay inaan labadeena annagana haddana dhex galno 11 bilooda war 11 yaraa war dhowr sano dhashi aan dhali lahaa sooma dhaleen haddii aan dhowr sano aan joogayo war cimrigu ku haray maadaa adiga oday duqo hadda gabow ah 40 la jiraayo haahe aniga waxa dhano aan ku dhaha dhowr sano iyo si fiican in annaga isku socono labadeena la dhaho adduumaadka inaan buugga taariikhda galno maya waa kaa diiday taas xalayna waa kaa diiday maantana waa kaa diiday mari mayso taas wixii kale aad sheegi lahayd sheeg haddii aysan ahayn 5 saar wadada odaga horta wax ma galayaane laakiin lacag la inaan ka qaata eron bis waay hadda mawduuci jaceylka uu xiraa ma galaya ma ogtahay jaceylba ma qaadanaysa la yeelaa lacag hadda waaba kuu imide martida waxaa la hadday kuu timaado waa la sooraa bal hadda xumaan iyo samaan iloowe haddaan kuu mid weji fiican igu soo dhaweey bal marti haddii aad iisoo martidayso beydkayga waa taqaan ama gurigayga waa taqaan gurigayga u kaalay inta xataa gurigaaga ka mid tahay iyo golahaaga hadda ganacsi wey waa goob ganacsigii waxaa la yidhi aqoonta kala saar ganacsiga iyo saaxiibtinimada kala saar waxaad aniga iigu socotay guriga ka dhigo allah see hor u geliyaa war waxaan ku dhahay dubadkii hore maba ahaba kan waxaa
بسم الله الرحمن الرحيم يا أسو عقل علي لكن هذا أنيقا قرقيني كإمد أو أذيك درادا أسو بحي ترسبورا إيقا صو بحي والله هذا ما إسكالابتا أنا وحنا قعنتو كوين waxay tiraahdaa carabtu dabar calaa nafsig maadaama markii hore aad soo dabarto oo daraaday u soo baxday haddana dabar calaa nafsigo gurigeena dib ugu laabo warka waa la iisoo gaagaabinoyaa ku dhahay aniga ma ka haray aniga ima taagnayaa jawaahir aa leedahay jawaahir may dubad saasaa dhin dubad horta walaalnimadii hore iyo wanaagga isku barane taasna inaa xoogaa la xushmeeyo lasii eega way fiican tahay walaalnimadii adigaa ku dheeray haddii aad ku dheeshay aniguna waan dharqiyey dubada horta yaa adiga yaa iga kaa dambeeyey horta saan kuguma ogeene cidda iga kaa daba maraysay yay ahayd cid iga kaa dambaysana ma jirto dumar oo dhanba waa nacay aniga calaa daraadda aanu nacay dumar ma horta waa nacahay dhihina duniyaba hoostaa ku haysataay duniyadu waa xaaskayga laakiin dumar dambe oo la hasaabo waaba kaa cabsanayo haddeerta aniga waa naxnaxsanayo waaba kaa baqoyaaye waxaad yeelaysaa intaanu isku nixin iska sii bax hadda trisboorkeygi uga imid gurigeena daraadaa intuu taagana isi horta in adeeg lagu galmaa faa'iido kale ma waliba trisboorka hadda iga soo baxay wallahi inaanay inta ka tegin adoo trisboorki aan daraadaa inta kusoo bixi ahda isiinin هاي ناصر واو فلسن سيداتا soo dhawow soo gal gaariga ka waran caawa hoteeladaas hoteelo kamid ah ama hotel kamid ah hadaan ku cashageeyo aniga ha maya alay kale ani hotel ma aqaan ko dhe maamadan waa igu qeelinaysaa ani habeen maqrib ma bixi karo aniga hooyada way tumaysaa sidee wax wadaa marka sideen ku baxaa marka lagu tumaa adigu ilmo ma tahay filisan oo maxaa ilmuhu ahaa way hooyada agteeda ani ciyaala ka ah weli ma ogido adiga inaad fahanti isku day filisan maya abu ani 16 ah moogtahay idaan baxo dhan ku jiri ka waran haddii aan halkeena sheekada aan ku dhamaystirno mise gurigaan tagnaa gurigeena ma tegi karo waxaan ka baqayaa in gaariga lugaha la iga furto waad og tahay magaalada tuugaa ku badatay horta abu soo dhawo dhibkaaga ma jecel aniga anayo adiga ii imaadan inay wax ku soo gaaraan ama ay wax si kaa noqdaan diyaar uma ihi bis halkan ayaan ku sheekaysanayna halkan ayaan ku qabsanaynaa ka waran haddii aan ballantii aan qaaday aan soo oofiyey maxaad ii oran lahayd balantee miyaad ilowday bal arag telefoonkan indhahayga miyaana mise anaa umaleeyo indhahaaga maahan waa run subriyaa ku jira umaleyn abkaada astaataabtay walaa waana soo jeedaa de maxaa ii qaldan abow run miyaana taleefka harmaa iskale hadda adaa iskale qula kaan buu kana fiiriya kaan allah naasir hasaan maa nin fiican u ahayd way dhaafto walaahi waad ii keensatay walaa way dhaafto saaxiibo kuma dhaafin taleefon kan kuma dhaafin hadda gacanta adir wada saaxiibehe ruudo waxaas ma jiray waxaas goorma laga tego waxaas daaqada hada daaqadii ka baxday wilson ay warkaan qaraabeen telefoonkan wax ka weyn aad iga mudan tahay telefoonkan kana igu filan mid kale marabi maxaa telefoonka sidaan ugu mashquulaysaa miyaadan arkin telefoon noocan oo kale ah intee ka arkay ka ogeeda waa watay horta gaas iga xor horta aragiisa bidhawaaye iga xor simkaar ka baxso had inta ku jeedo xor mama se u tuura maalanta cunug ila soo iga yara siinahay cunuga ka fikiree ha u fikir waana la shee hadda telefoonkan ku kan kaas ama tuure mama hooyada la fogeliyaa maxaa marka magaalada aado ay soo wacay joogtaa ay dhahe hooyadana u keenay telefoon mama hooyada dhow biyo ugu dhaxdhacaa kan laakiin haduu biyo ku dhaxdhacay hadii kale wax ma ka dhibayso haybal iwar xaaladaada iga oran abo wallahi fiicna hadda dhowr mar aad u adkaysay filisana caawa laba mid baa kugu socday midda koowaad inaan oofi ballanqaadkii aan ku sameeyay ahaa inaan telefoonkan aan ku keeno midka labaadna waa tii hadda ka hor aan arrin kaala hadlay arrintaasna waxaan rabaa inaad jawaabteeda aad siiso horta waa kaaga mahad celinayaa sida ballanta aad u qaaday aad u oofiday mideeda kaleeto abuu horta wallaahi arrintaa igala hadashay weli kama fikirin ani sababtoo ah waxay u baahan tahay inaan waqti helo maskax degan anoo yacni ismaqlaayo inaan ka fikiro oo go-aan qaato balse haddaan nolosheeda go-aan ma ka gaari kari oo maxaa dhacayna maxaad uga fikiri weysa jaaniskaasba ma helin soo maaha
mideeda kaleeto waqtiga arrinta ii sheegtay adi laftirkaaga maalin yaroo koobanayd hoosta ii geliso soo moogi hadda iidan aniga adigaan ku jeclaa waan kasoo fikirayaa kuley aniga fikir sidan ma waqti iga dhammaynaysaa waqtiga ma luminayo naasir horta buu iga raali noqo mideeda kaleeto aniga arrintan hoosta iga soo gelisay waqti dheer maada siinin shalmee daraad ahayd markaa ii sheeganaysay welina aniga ogtahay barbuleemka iyo buuqi iyo waxyaabihii hore aan soo maraa maskaxdeeda ka guuxaayo hadda waayahay goormaan ku imaado oo jawaabta saxdaad isiinaysaa anaa kusoo wacay bishaaro isbitaalka daarushifa isbishaalisti hosbital waxa uu ugu bishaareynayaa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda inuu kusoo biiray isbitaalka daarushifa doctor wisam antion trade oo ka yimid dalka syria kuna taqaqusay cudurada obstetric and gynecology dhakhtarka cudurada uu daaweynayo waxaa ka mid ah 1 daaweynta xanuunada ku dhaca ilmagaleenka ugxansidayaasha iyo qalimadooda 2 ogaanshaha xilli hore kansarka ku dhaca ilmagaleenka iyo naasaha 3 daaweynta ilma la'aanta ragga iyo dumarka alla ubadka bixiye 4 daaweynta infectionka ku dhaca ilma galeenka kaadimareenka iyo caado wareerka 5 hogaamin uur badqab ah iyo la socodka ilmaha uurka ku jira 6 dayactirka iyo dib u habaynta ilma galeenka hooyada dhashayda ah 7 dhammaan qalimada la xiriira dhalmada oo lagu sameynayo qalab casri ah fiiro gaara dhalmada iyo qaliinka hooyada ilmaha lagu soo qalo waa lacag la'aan warqada dhalashada ee ciyaalka ayaduna waa lacag la'aan wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber 6 31 33 39 ama eber 6 7 34 77 dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho la ogeysiinaya in dhawaan macadka barashada cilmiga saxaafadda ee Danan Training Center uu bilaabi doono tababar ku saabsan barashada culuumta saxaafadda oo hab casri ah lagu bari doono dhammaan maadooyinka ay ka kooban tahay xirfadda saxaafadda waxa lagu bari doonaa sharciyada saxaafadda diyaarinta wararka iyo barnaamijyada qaadida doodaha barashada Adobe Audition-ka iyo sidoo kale barashada kaamirada xilliyada waxbarashada waa full time iyo part time haddii aad nasiib u yeelato marka aad dhamaysato koorsada barashada Danan waxa ay ku suurta gelin doontaa in aad tababar dhameystiran si toos aad ugu qaadato haddii aad ka mid noqoto ardayda ugu horeysa ee ku soo baxda imtixaanka tijaabada xarunta barashada cilmiga saxaafadda ee Danan Training Center waxa ay ku taalaa degmada Hodan gaar ahaan dalcadda Taleex wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala soo xiriirtaa telefoon nambarada kale ah eber 6677 eber 356 eber 6677 eber 357 ama telefoonka kale eber 589 horay u gaar xarunta barashada culuumta saxaafadda ee Danan Training Center Danan Radio wehelka ganacsiga saaxiibayaal waxaan idinkugu yeeray inaad iga caawisaan ganacsigan waan isku yara wareernay macal asaf maxaa jira miskiin marketing ayaad u baahan toddoba ayaa ii qaabilsan suuq geynta toddoba maahe toddobaatan ha noqdaan sabab yacni shaybaarka ay wataan kuma filna faahfaahinta waxtarka alaabta ganacsigaada iyo soo bandhigistooda sidaa daraaddeed waxaad u baahan tahay in lagu luqsiiyo Danan 94 Mekatis tablet muxuu u roon yahay waa kobciyaha ganacsiga kuma fahmin waa marketingka ugu fiican waana saaxiib daacad u ah ganacsiga mar qurana gaarsiin kara malaayiin qofood dhagahooda Danan Radio siday dadka u jecel yihiin aan ka gartay sax ma anaaba saa u fakarayay meeqa mooge oo adoo kala maryaha markay xooran gaareen markii ciidda Danan Radio marar badanba markii looga daayay inta ay maqsuud noqdeen ayay malab faraha kula jiraan waa muutanaya Danan Radio raadiyaha Danan wehelka ganacsiga ama wax farantiisda kala soo xiriir eber 6 ama eber 6 eber ama emailkeenu oo ah info@radiodanan.net gabadhan heerkan inay soo gaarto inay noqoto gabar muuqaalkeedu uu aad u sareeyo inay noqoto gabar mutacalimad ah in ay noqoto gabar anigu mudnaanta koowaad mar walba aan siiyo ruweyda intaas oo idil waxa ku qarsoonaa waa jacayl jacayl haa ruweyda oo majaariyada
haa waan jeclaaday ayaduna way i jeclayd jabka ku soo gaaray jeexeegiyo iyo jecelkii jaariyadda midnaba jaahilnimo kuu galay maya ruweyda abaayo jaahilnimo halkaa iga dhig gabadhu waxay ahayd gabar wanaagsan wax badan ayay inoo qabatay hooyo waa i nasatay anigu waan nastay adigu waad nasatay dhab ahaantii gabadhaasi waxay ahayd gabar aad dabcigeeda u sarreeyo gabar degan ayayna ahayd aniga ha i aamusinoo ku baryayaa maanta waxaasoo idil anigu waxaan u sameeyey keliya maadaama ay ahayd gabar aad u deganeed inaan guriga sidii qayb ay uga noqon lahayd inaan falkeeda aan ka shaqeeyo waad i fahmi weysay adiga hooyo ayaa aad iigu soo dhoweed oo i tiri gabadhan iyo fakanin haddii adiga ay kaa fakato ilmaha kale aad wax isku tihiin ayaan barnaamijkaas sidii ay isku aroosi lahaayeen falkeeda ka shaqaynaya adigu laakiin fikir khaldan ayaad iga aaminsanayd oo gabadhaasi maadan ila rabin haddii aan garab idinka heli lahaa dhab ahaantii filsan gurigan ma aysan ka dhaqaaqdeen filsan anigu maysan ciqaabteen cadaadis ay guriga kala kulantay ayay uga tagtay xaqiiqatan oo adigu number 2 aad ka tahay ma jaariyadda ma ahan jaariyadda ee waa filsan ama filsan leh ama si kalaba u faani jaariyad waa un jaariyad ruwayda bes yaaqay markan ruwayda bes jaariyad hadheen xilli bay jaariyad ahayd hadda laakiin anigu xaggayga filsan ayay ka tahay weliba qof qalbigayga ku weyn ayay ka tahay hadday anigu idayrisay ay banaan cidna iga tagtay ay cadaadis dhanka guriga amaba walaashayda ay igaga carartay aniga ayaan ku jecel waan ogahay maalin dhan way iisoo noqon doontaa bes jaariyad hadheen gabadhan waan jeclahay haddii aad walaashayda tahay waxba mana kaa qarsanin maanta bliis mar damba jaariyad hadheen way naga tagtay maalintii noo soo noqota ayaan arki doonaa caamir kugu diga maayo aboowe laakiin xaq baa feero ka dilaacay anigoo walaasha ayaa garab kaa waayey naagtii jaariyadda ahayd ayaad garab siisay jaceyl ayay kula jishay jaarkeed markaad noqotona jidkay kugu tuurtay aad ayaan uga xumahay aboowe waa ka xumahay taas bes ruweyda haddii tashi badan aan samayn lahaa haddana adiga kula tashan lahaa waxaanoo idin maysan dhacdeen adiga ayaan banaan cidna kuugu tuuray oo anigoon tashi cidna aanan ka qaadanaynin ayaa wax walba gabadhaasi u sameeyey laakiin waa abaalkeyga inay sidan ay ii gasho inay waa ka xumahay ruweyda raalli noqo khalad aan adiga kaa galay waan dareemayaa in waxaanoo idil ay ugu dhacayaan bes raalli noqo mar dambana kuma deyrin doono waatan filsantii mar walba dhankeeda aan jiray way iga dhaqaaqday nafta ayaa igu kallifaysa maanta mar dambana aanan kaa dhaqaaqi doonin ruweyda adiga iyo weliba hooyo mar walba dhexdiina ayaa ku jiri doonaan qof dambana ma aamini doono waa hagaag dhegaystayaal intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii 3/3 ee sheekadii la magac baxo jaariyadda sheekadani hal abuurkeeda waxaa iska leh al-ustaad aadan macalin cabdulaahi aadaami isku dabaridka sheekadu waa maxamed deeq bare xaaji cumar fiyoore habeentii hagaagsaneed ee almuhandas liibaan cabdicali sheekadan waxaa idiin jilayay wariyaasha warbaahinta danan inta aanu ku kulmayno qaybaha kale sheekada waa abbahadii oo isku duuban idinku dhaafaysa sidaas iyo ma dhaafno